شويلكii waxgaradka degmada Garadeg ayaa soo dhaweeyay go'aankii wax ku oolka ah golaha guurtida ay midada ugu kordhiyeen xukuumadda uu hogaamiye madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo isla markaana xaflad si heesaraa loo soo agaasimay lagu taageeray go'aanka golaha guurtida ayaa ugu horeyntii waxa ka hadlay cuqaasha waayilkii waxgaradka degmada Garadeg iyo arinta ka hadlay hadaladooda waxa kamid ah sida tan waxaan ugu taagalay inaan ku taageerno muddo kordhintii ay guurtidu kordhisay ee xukuumadda u kordhisay waanu soo dhaweynaynaa si weyn baanu soo dhaweynaynaa waxaan kale oo taageeraynaa wasiirka arrimaha gudaha go'aankii fiicnaa ee uu qaatay ee uu ku sugayay nabadgelyada horeba sheegeen alxamdulillaah rabbil caalamiin ilaa baa mahadle waxaanu taageersanahay muddo kordhinta loo sameeyay xukuumadda haddii aanu nahay reer Garadeg haddii aanu nahay reer Bariba xumaan baan waxba ku lahayn xukuumaddu waa xukuumad aad iyo aad وشغيسة حكومة هذا نجايا قرار الجورتي واحد اللي نما الله هو بين هبلو مديبتو نما الله هو بين هبلو مديبتو قرار الجورتي مدكورين تأي سمايسي أكرلسي حكومة أكرلسي تانا ما حد بانكون رأينا هذا ونهاجر كذا نين مكان ننشوجا انت وان سوا فخسنا هاي أرنكا وان نكور صعنا وحنا لنا شو كان شرعي أنا ما كان أقول قواني أنا سوق غير كلينا ما نبقى يبيع بالشدة بدونها ريال كرغل وحنا كسبسين هاي أما أنا كنت أجرينا بدو كورين تلوسين اللي على حكومة تلوسين يوصلين يقولها بورتجو سنة خير تمام كبلولا والسود وين وانا تعجر سنة هاي وانا كنت مدول أبو خبان كروين أما أين صورة جيلين كرتين حلي كم كنا تعدور شذا ودي الجلود بيجوا داعي مركاتها وانا تاجرينا ومدرسة TV قرنك جمهورية الصومال لان Garadeg